garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye oo qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbigaasi kulmiye ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen xilliga la qaban doono shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbigaasi iyagoona tilmaamay in shirweynahaasi uu qabsoomi doono 18 bishan December oo ku beegan maalinta Axadda ee toddobaadka dambe waa kuwan qaar kamid ah garabkaasi oo sidaas u sheegay warbaahinta garabkan dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye kadib markii uu wada tashi balaaran la yeeshay hoggaanka xisbiga waxa laga maarmaan noqotay qabashada shirweyne qaran oo ay garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye isugu yimaadaan haddaba maanta oo ah maalin Arbacaa taariikhduna tahay 14 bishii 12aad 2016 waxaanu halkan oo ah xaruntii dhexe xisbiga kulmiye ku qabanaynaa ama kaga dhawaaqayna shirweynihii garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxaan doonayaa inaan wax yar idinka taabto ujeedooyinka shirkaas oo kale shirka waxa ka qayb galaya ergo ka kala imanaysa 14 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkooda iyo waliba dhalinyarada qurba jooga ah iyaguna qayb lixaad kale oo ka soo qayb galaya ergadaas oo matalaysa dhammaan dhalinyarada xisbiga kulmiye meel kasto ay joogto dibadda iyo gudaba shirkan waxa lagu falanqeyn doonaa lagana tashanaya siyaasadda iyo qorshayaasha ku wajahan mustaqbalka iyo horumarka dhalinyarada taasoo natiijada ka soo baxdana lagu dari doono barnaamijka iyo manifestada xisbiga kulmiye hadii la yiraahdo waxa uu qabsoomi doonaa 18 December maalinta Axadda halkan xarunta caasimadda Hargeysa ay ku qabsoomi doonaa shirweynahani wuxuu qayb ka yahay barnaamijyada ama siyaasadda hoggaanka xisbiga kulmiye oo ku horumarinayo doorka ay leeyihiin dhalinyaradu shirweynahani ay ku dhawaaqeen garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ay isugu imaadaan Waciduus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable gudaha magaalada Hargeysa.